xoolo dhaqato la rumaysan yahay inay ka soo jeedaan waqooyi bari Kenya ayaa qalalaase geliyay goob uu ku sugnaa wasiirka arrimaha gudaha Kenya kadib markii rasaas ku fureen meel u dhow deegaanka uu ku sugnaa wasiirku. warbaahinta dalka Kenya ayaa tabisay dhacdadan oo hadal hayn weyn ka abuurtay dalka Kenya xilli ay taagan yihiin dhibaatooyin ka dhashay abaarta iyo xiisadda u dhaxaysa xoolo dhaqatada iyo beeralayda. wasiirka ayaa goobta u tagay inuu u kuurgalo xaaladda amni darrada ee deegaankaas kadib markuu geelayda hubaysan lagu eedeeyay inay dileen rag deegaanka u dhashay. rasaasta oo ka dhacday meel aan sida uga fogeyn goobtu shacabka kula hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda dhexe ayaa horseeday kala carar. wasiirka ayaa sheegay in geelayda hubaysan khatar ku yihiin amniga isla markaana ay dawladdu la xisaabtami doonto sida ay ka soo xigatay warbaahintu. haddii ay la tahayna ku badan yihiin ama ay ka tababar wanaagsan yihiin ciidamada amniga waxaanu arki doonaa maalmaha soo socda ayuu ku hanjabay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya. xiisadda u dhaxaysa xoolo dhaqatada ka soo hayaamay abaarta ka taagan waqooyi bari iyo beeralayda deegaanka ayaa taagnayd bilihii la soo dhaafay waxaana jira dadaalo ay wadaan siyaasiyiinta iyo dawladda dhexe ee dalka Kenya. xoolo dhaqato u badan geelay Soomaali ah ayaa ku dooday inay xaq u leeyihiin inay xoolahooda u daaq geystaan goob kastoo ka mid ah dalka Kenya. hase yeeshee beeralayda ayaa ku dooday in xooluhu ay ka daaqaan dalagooda taasina iyaga ku tahay khasaare. isbuucii la soo dhaafay 2 weerar oo kala duwan ayaa lagu dilay 2 qof. wasiirka ayaa halkaas u tagay si uu uga soo taxsideeyo qoysaska laga dilay dadka. wuxuu sheegay in rasaasta lagu beegay shirkiisa ay ahayd mid si toos ah lagu gardareysanayay isaga iyo dawladda. warbaahinta Kenya ayaa ku waraday in wasiirka arrimaha gudaha uu amray in si qasaba xoolo dhaqatada looga saaro deegaanka laguna celiyo deegaanadii ay ka yimaadeen. dadkan waxay muddo badan ahaayeen kuwo lama taabtaan ah. taasi waa inay hadda soo afjaranto. geelaydu waa inay ka baxaan deegaanka. wuxuu sheegay in boolis dheeraada iyo laamaha amnigu ay xoogga saari doonaan sugidda amniga deegaanka la isku haysto. siyaasiyiinta Soomaalida ee laga soo doortay waqooyi bari Kenya ayaa codsaday in loo dhibriyo xoolo dhaqatada abaartu wado waxaana dhacaya kulamo lagu xalinayo arrintan. wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay inuu dib ugu noqon doono deegaanka inuu si degdeg ah wax uga qaban doono qalalaasaha ka taagan halkaas. wuxuu sidoo kale ballan qaaday in la dhammaystiri doono saldhig boolis oo laga dhisayo deegaanadaasi ciidamo dheeraadana la geyn doono.